نحكي أنا بحلو قصلس كذا في بحاول ما ماركن مركا أنا مرجع إيش إن ما قبل أنت ما يقول الربطة أسلحة بقول شيء فيني وكهلا وروح أنا والله بلا كان حدا ساري وزين والله بلا تلا سوماليين أنا أنكسو جيسون ديسلايك ما فايدين أمور واحد لا إيه محاكا جلسة خوف من التي في الفيديو ماشي ما محلو فيديو معناه إنه وراني واحد نكان حدا ماشي ساري وزين والله بلا تلا أنت نلا دبل ديسلايك بلا من إنك سوكيني أستاني نهديك المو برنامج كأنه وكحرنا هاي ودا ونا أفرلا تساعد وكحرنا هاي فكر كلنا وسليم إنها كبحسنا وعي إنك مركز أسود بندقتين وح الله لو سوشيال ميديا سماده وحن حق وين إنك هذا لنا إن الرياكشن كبحينه الرياكشن كان من أنا لينكاس كمان هلين بوزيشن بس هلاقي غاد خوف كلكم بدل أما أنت دبلو عليو هذا يكون دبلو عليو توبرها وصوصيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود الكل انتوا عن وناكسن هل كان نقدر داونا سنة وابو على الميديا هذا نوع حرنين سبسكرايب سنة هذا نوع حرنين ده فيديو لايك صار سين شير جراي هل كان يمان توحدين كوه هنا فيديو aan rabno inaan macnaha aan wax ugu sheegno Astaan TV ama cadeemo aan ka hayno Astaan TV inta badan maalmahan qabsadayba dhanka TikTok iyo email walbaba macnaha maxaa la dhihi jiray arintaas aan rabaa in aniga ka hadlo ama fikirka aniga aadinaan meeshan ku soo gudbiyo horta dhamaantiin saawada ognahay dhalinyarada Soomaaliyeed maanta wadanka joogto waxa waaye ma haystaan wax shaqo ah macnaha ma haystaan wax garaba haddana saas ay tahay dadka inta badan garabka ay ka doonaan ama isleeyihiin talent yaa ku soo bandhig waxay kala kulmaan bahadlaad baahsan macnaha waxaan qarsooneynba arintaas marka waxa cadeen u ah maalmahan saa aragteen Astaan TV barnaamijyo badan soo fasaxday dhanka ramadaanka ay ugu talagashay kulley shaqooyin badan oo hadda waxay haysaa aan macnaha markii hore fiidiyoyin badan aan Astaan TV oo ku xiranahay waxaan subscribe oo ay tahay وانا لا سؤال انت بدل مقابله اي سو دغتو لكن waxa jirto waxyaabaha aniga qalbigeyga guuxay aan rabo macnaha aan dad inta inaan ka sheego aan ayna ahaayeen waxaas waxa aad ugu xumahay yihiinba waxaan rabaa markaa in de meeshaan aan ka sheego ma xataa hadalku ay dhawaa walaahi you know this thing was very serious very dangerous waxa way wax macnaha de la fiirsan kara maan inta badan وانا waxa ugu digayaa Astaan madaxdeeda iyo dadka Astaan markaas de mas'uulka ah in arintan ka feejignaadaan ayna ku dhaqaaqaan sidii arintan ay macnaha ay meesha ugu saari lahayn ama macnaha iska dhaafi lahayn horta dhalinyartu isweydiisan dhalinyarta intay soo baxaan maanta macnaha barnaamijyadiin ka soo qayb galo waxay soo bixiyaan waqti juhdi qofkii diyaarinta sheekada uu soo diyaariyay lambar 2 tan kale inuu macnaha juhdi waqti ka soo galo socodku idin soo socdo idin ku imaaday horta Soomaaliya dadka inta badan runta ka hadlooyn macnaha wacay iyo aflagaad iyo waxay la kulmaan iyo dhibaato farbadan maanta horta adduunkii xitaa walaadidii aan fakin waxa laga yaabaa maanta hadii walaad maanta inta la soo dhigo sheekh wacdina inta la soo dhigo channel waxa laga yaabaa hadii comments la akhriyo 2 qof 3 qof 4 qof hatta ilaa 10 qofood caaytama in laga dhaxooynin marka caaydu horta mar walba waxa social media loo joogo waaye qofka runta ka hadlaya Soomaaliya inta badan ma jecelo marka waxaan rabaa arinta aan idin ku fogeynin video waxaan rabaa inaan soo koobo Astaan TV qaybta qaraaxo is normal waxa is okay barnaamijyada kale waa okay laakiin barnaamijka inta badan sheekooyinka ay ku soo bandhigaan shaadiyo sida laba wiil kale anima garnaayo waa dad ugu cusub waay sheekada markii qofka uu soo dhiso oo meesha uu imaado horta hamiilay qofka wuxuu leeyahay ama dadka talentiga ay sidaas ay talentiga alle dadka ama asaas amanaha ay inta uu soo bandhigtid dadka ay ka helaan oo ku noqoto qof caana oo berin wax qabsada tan taas waa ku tan kale kulli qalbiyada qofka bini aadamka yani wuxuu meesha ku imaan karo tan kale ina macnaha balan qaadi asmaysan adaadan hadii bureeg saddexaad aan noqoto qofka uu horeeyo waxay leeysaa shahaado iyo waxyaabo noocaas oo kale ahelaysa yani qofka inuu soo hami noocaas oo kale inuu meesha ku imaan sababtoo maadaama wadanka shaqo jirin maadaama macnaha burburi dhibaato wax la iska yidhi dhalinyartii hami badan ay leeyihiin laakiin hamigooda qaabay ku rumeeyaan ay laasiin laakiin iniga oo noqotaan dhalinyartaas qaabka macnaha de ayaga hadday jab iyo problem wadanka ka jiray qofkii asoo waxayn oo iska problemsan intuu idin imaado haddana aasi bahdishaan horta wax laga fiican waa tan waa bahdilaad la dhigi karaa sababtana ila fiiri haddii bahdilaad ama idinka waa meesha joogo magarateen oo ah maxaa la dhigi jiray marqaati hadda muuqaalka hoos dhalinyartu ama dhalinyarta inta badan TikTok ta isticmaasho hal qofan ka soo qaadanina maxaa fikirkiisu yahay ila dhageysta bal muxuu yahay fikirka uu ka qabo Astaan TV astaanay dhaawac ka u dambeeyay baa la yidhi saalid ka la sii sido bahdil la bahdilayo dhalinyaro yar yar
oo talenty leh Sharma Boy cibra qaadasho haynu ku noqoto mid dambe inaad samayn doontaan uma maleynayn laakiin waa dhacday barnaamij baa samaysan la dhaho Maadays oo dhalinyarta talentiga leh oo wax ka qoslin kara waxa way saad bulshada u horkeentaan marka barnaamij qabanaysaan dadka waxa way hogaaminaya waa inay akhlaaq iyo tarbiyad ay ka dhisan yihiin shaadiye sharaf iyo wiilka shaatiga caso dhexda ku jira Allah barakeeyo waa dad wanaagsan ogna sida waxa way wax loo maamulo laakiin ninka geeska xiga akhlaaqna kama dhisna tarbiyadna ma laha sida dhalinyarta loola hadlana ma fahansana u maleeymaayo inuu shaqada xirfad ku yimiye waa garabation ku yimiyo waxa way dhalinyartii sidoo inuu iskool haysto adi xagee ku soo dahday see u soconaysa cunto miya nin weyn oo TV hordho fadhiyo oo khayru khalqi ilaahi daawanayso waxa nin barnaamij waxa way ka hordhigi kara ma ahay ilma adeer rayaalo waana ogahay 99% ina commentiyadina akhrinaan marka ninkaas dhalinyarta raali galiyo barnaamij damana yuni indaadihin hadda doonaysa inuu magaciinu jiro waa qof kamid ah isticmaala aalada TikTok kaligiisa ma ahan dad badan waxa jirta commentiga hadii si dhex gashidna waa sax dadka dhan waa isku raacsan barnaamijka dadka daadihinaya barnaamijkan hadda Maadays ay magac dareen dadka daadihinaya ama dadka inta badan madadaalada u ah daadihinaya dad badan waxa jirto barnaamijkan ka qayb galay haddana macnaha bahdilaad mid ugu weyn la marsiyo waxa laga yaabaa qof inuu sheeko soo bandhigo sheekada isaga uu soo bandhigo qofkii markii sheekada uu dhameysto isleeyahay markaan wax fiican la kulmi doontaa waxa uu leeyahay wax meesha lagu qoslamiyaalo ila fiirsada hadda muuqaalkan yar كافي كالديري استاذ ما استنتهي كافي كالديري شيء كذا سوما قصوا لي أذن كافي كالديري كلتا بولشيد وحكو هلا فيري وعودها قبر سوماليا ما يستاهلون وقت الجهد هم له وعودها أديك شيكدي أكشيكيس شيكدي قبل وحي عبد كافي كالديري وعودها شيكدي أكشيكيس وكافي كالديري من القصلبة براذر أنا هدي شيكدي ولي ما أركن لكن اسكو بدا ان دب ولا تو شيغada gabadhan hadda uu leeyahay kaafi kala dheeri waaye oo isaga bahadiri xitaa ma yasiin doono macnaha in gabadhaas sheekada ay sheeko juhud waqti lagu soo bixita waxa laga yartay in imaan xitaa inaadan bajaaj ka soo bixinin bal yarta Maadays ka soo qayb galayso xitaa waxa laga go on back bajaaj intaad ka bixisin xitaa inaadan ka soo bixin qofka hamii leeyahay imaaday waxa la marka si wanaagsan jiri degan qurux badan xitaa hadii talent u leeyahay xitaa in ay u dhaqantiin sidii qof macnaha insaana qof bini aadam cumilna oo qantiina la rabaa sababtoo ah qofku uu imaado juhud waqti uu soo bixiyay oo idin imaaday barnaamijkii uu soo qayb galay waxa ku taraysan jirto ma yaasiisay dadka waxa way barnaamij waxa laga inuu saas kaga haraba waqtigii juhdigii uu soo bixiyay laakiin hamigii uu lahaayna adigaas bahadiliyo laga hamigii shalay uu lahaa maadaama bahadilaadii ugu weyneed dadka astaahad waxa lagu diraa TV-da ugu weyn magaalada Muqdisho hadii kabaran TV-ga ugu weyn magaalada Muqdisho qof kamid ah ama usleeya ninkan ari hadda fiir qofka marka ku imaanayo wuxuu adi aala tahay madax aala tahay fiir qofka markii oo yani qofka maskiinka oo maanta waxay ogeyn ama markuu ku imaanayo adi wuxuu ku meesha aafadid yani positionka ay aafadid ama macnaha title qadi meesha ku fadhiyo wuxuu u tahay qofkan sheekada soo jeedinay ama ku imaaday adiga waxa la tahay qof madaxa oo kamid ah Stan TV hadii qofkan wuxuu maskaxdiisa ka dhaadhicinaa sheekada aad sheegtay xitaa dhiirigelin ma lagu siin qofka warkib gooyn sheekada way qurux badan tahay laakiin inta saas inay yeeshid saas inay si qurux badan xataa ma yodha laakiin sheekadaada wax qosol iyo kaafi kala dheeri kartiin qofkii maskax muxuu dareema qofkii juhdi waqtiga soo bixiyay intaas bullshit waxaas niyo wax adi fikirka dadka dhalinyarta oo dhan maanta adiga kugu soo jeesto ku jiro adi muxuu kugu jiro aqliga malaada midda kale barnaamijka xitaa hadii la dhahay xoogaa adiga qofka saddexda qof meesha fadhido miisaaniyad markii la sameeyo kulligeena haamo dhigi karno laakiin hal qof xoogaa isir adkay qofka isir adkayna xitaa waxa la rabaa si anshax ku jirto maxaa la dhihi jiray bini aadamnimo ku jirto inuu hadlo sheekada yar dhameysano muuqaalkan waa idin soo xiraa xaqi ana wax lagu qosla iska dhaafay wax u dhigma xataa ma arkin marka aniga waa muruga aysan gabadha inta ma ku dhal rabtaa islaahay bullshit fiiri wuxuu ka hadlaa waxaan wallahi bila kan hada saaraysiin wallahi billahi tala Soomaaliyiin dana uu soo jeesanayso dislike ma faa'iido umur iyo wax kale in xaq ka galasay qof dhino TV war fadhiyo meesh ma waxa loo fadhiyaa macnaha in oo uraaniyo waxa ninka hada meesh ka saarayso wallahi billahi tala intii nila daba dhigto dislike billahi dhan idinka soo keenay astaanay hadii kalmo barnaamijka anaga ku xirannahay waa daawana 4 saac ku xirannahay fikirkeenu waa saliim inaan ka baxsanaa wixii idinka markaas soo bandhigtiin wax allaale wixii social media imaado waxaan xaq u leenahay inaan ka hadalno inaan reaction ka bixino reaction keenu wuxuu yahay ninkaas kamaan helin position kaas halaga qaado qof kale ku bedel ama intii dib loo celiyo hadii koob dib loo celiyo tababar hala soo siiyo ma salaam
haddii kale idinkeeni taallaa wallahi muuqaalka xataa wallahi intaas waa ka fogi laakiin inaan dhamaysta mar rabo umul iyo wax hadduu gabadha soomaaliyeed oo meesha tahay inuu talented ahayd oo dadka rabtay in wixii markaas ay rabtay inuu soo bandhigto sheeko qurux badan soo bandhigto hadduu taagan umusha iyo filinkaas waraxan iyo boolshin iyo uu qalbadayna dami saaxib dami